بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتنا شرفت لكم سو dhawaada kanaalkeena Baraf Ingiriis oo ah kanaal ugu talagalnay inaan idinku soo gudbino cashiro ku saabsan barashada afka Ingiriiska. Sida hore u sheegnayba cashiradeena waxay quseyn doonaan ama ay ku saabsanaan doonaan ama ay u fududeyn doonaan dadka rajeynaya inay bartaan luqadda Ingiriiska oo aan haddana waqti u heli karin sababo jirta awgeed iyo carruurta rajeynaysa ayagana sidoo kale inay bartaan qaabka cashiradan ay kugu soo gudbin doonaan waxay noqon doonaan qaabka ugu fudud ugu sahlan oo qof walba ku fahmi karo kuna baran karo oo u fududeynayso inuu ku barto sida ugu sahlan oo ugu dhaqsiyaha badan insha Allah. Intaanan cashirkeena guda galin maanta intaanan guda galin waxaa idin xasuusinayaa in bariyahan cashiradeena taxana ahaa oo hakad naga galay sabab jirta awgeed iyo anigoo safar iyo waxaas arrimo badan igu soo wajaheen oo xalinaya alxamdulillah hadda wax kale wax walba hagaageen. Haddii waxay ka dambeeyay waxaan rajeynaynaa cashiradeena inay noogu socdaan si taxana ah oo aan kala joogsi lahayn hadduu Ilaahay idmo. Sidoo kale waxaa idin xasuusin doonaa in mar dhow aan bilaabi doono cashiro online ah haddii aad danaynayso ama aad u aragto fikrad fiican fadlan commentiga hoos inoogu soo qor. Sidoo kale hana ilaabin subscribe, comment iyo share anagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Weli waxay dhexda kaga soo jirnaa cashiradeeni ku saabsanaa pronouns magacyaal oo aan maanta kaga hadli doono ayagoo saddex qayb ah oo kala ah pronoun plus be waxaan rajeynayaa hore inaan uga soo hadalnay iyo pronoun plus be plus questions. Pronoun oo magacyaal ah plus be dan waxay ka taagan tahay ficil ahaansho ah iyo sidoo kale anagoo gadaal ka sii raacsin doona su'aal ama question ayada yani qaab su'aal ah. Halkan qaybta saddexaad waxay noogu qoran pronoun plus be plus not waa magacyaal oo lagu daray ficil ahaansho ah oo lagu sii daray ficil diidma ah. Si aan u fahanno cashirkan bal aan ku bilaabno qaybteena koowaad. Halkan waxaan ku haysanaa I am a student. I am a student. Anigu waxaan ahay arday. She is a cook. She is a cook. Ayadu waa cunto kariye ama cunto kariso. He is a singer. He is a singer. Asaga waa heesaa. It is a sheep. It is a sheep. It sidaan soo sheegnay waxaan u isticmaalaynaa noolaha ama noolaha aan caqliga lahayn sida xayawaanaadka iyo dhirta iyo muxuu ahaa qalimaanta iyo wixii lamid ah. Sheep macna ahaan waa markab. Ayadu ama asagu waa markab ama kaasi waa markab. You are a worker. You are a worker. Adigu waxaad tahay shaqaale. We are pilots. We are pilots. Anagu waxaan nahay duuliyayaal. They are managers. They are managers. Ayagu waa maamulayaal. I oo aniga ah am waa ficilkii ahaansho ah aan ka hadlaynay. I am anigu waxaan ahay. Am waxay ka dhigan tahay ahaansho. I am anigu waxaan ahay a student. Aadaan weli waa xasuusataan oo waxay ka dhigan tahay singular noun oo hal ah. I maadaama aniga ahay aniga waxaan ka taaganahay singular noun ina ahay maadaama ma dhihi karo I am students anigu arday baan nahay ma dhihi kari. Waxaan dhahaynaa I am a student. Aadaan waa singular noun. I am a student anigu waxaan ahay arday. She oo ayada ah is waa ficilkii ahaansho ahaa maadaama she ay qaadanayso is waxaan labadan isku darno macnaha waxay noqonaysaa ayadu waxay tahay a cook cunto kariye. Aadaan waa weli singular noun. Cookna waa cunto kariye ama cunto kariso. He asaga. He oo asaga ah is waa ficil ahaansho haddaan isku darno waxay noo noqonaysaa he is asaga wuxuu yahay a singer. Singer waa heesaa. Aadaan waa weli singular noun. It waxaan isticmaalaynaa noolahan caqliga lahayn iyo manoolaha.
waxyaabaha aan nooleen sida shayyaasha. It isna waa ficil ahaansho. It is ayado ama isaga wuxuu yahay a ship. Isaga waxaa waaye markab ama kaasi waa markab. Aadan waxay nooga dhigan tahay weli singular noun. You are, you oo adiga ah ama adinka. haddaba saa u fahantid you marka la isticmaalo saa u fahantid adiga in laga hadlayo ama adinka in laga hadlayo waxaa kali aad fiirsataa haddii aan isticmaalnay a. ma haddii aan a isticmaalno a waxaan nidhi singular noun waaye. arna waa ficil ahaansho. You are adiga waxaa tahay ama adinka waxaa tihiin. adiga waxaa tahay ama adinka waxaa tihiin waa isku mid ah. waxaa u isticmaalaysaa you are. laakiin ina hal qof ka hadlaysid waxaa go'aaminaysa aadan. haddii aadan meesha ka maqan tahay waxay ka dhigan tahay dad badan inaad ka hadlaysid oo adinka ah. si muxuu ahaa loo fahmo inaad dad badan ka hadlaysid waxaa qasab kuu ah maadaama aadan meesha ka turtay halkan waxaa u baahan tahay s inaad kaga dartid. cashiradeen hore kaga soo hadalnay hadday xasuusataan. hadda s halkan kaga darno oo aadan meeshan ka tuurno waxay inoo noqonaysaa adinku waxaa tihiin shaqaalayaal. laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa hal qof bes oo adiga ah. You are a worker. adiga waxaa tahay shaqaale. We are pilots. We are pilots. We waa anaga. Are oo ficil ahaansho ah anagu waxaan nahay pilots. Pilots estana waxay nooga dhigan tahay jamac. anagoo dhan waxaan nahay pilotyaal. They are, they ayaga waaye. They waa ayaga. Are oo ficilkii ahaansho ahaa ayaga waxay yihiin managers. Managers ayagu waa maamulayaal. okay qaybteen labada gudbaynaa si aan u aragno ayada su'aal ah qaabkan u isticmaali lahayn su'aal ahaan. pronoun plus be plus question. magacuyaal oo lagu daray ficil ahaansho kadibna lagu sii daray su'aal ama su'aal ahaan loo bedelay. I am a student. halkan waxaan soo nidhi I am a student. haddaan rabno inaan su'aalan ka dhigno ayadii halkan inoo taali halkaana keensanay. am halkan maadaama inoo taali halkaana keenay oo waxaan ka rabnaa inaan ka dhigano am I am haddaan ka dhigano su'aal ma aha oo waa positive. laakiin su'aalaan rabnaa I am waa isdaba marinaynaa. ayda de hore inoo taali gadaal aan keenaynaa. amta de gadaal inoo taali hore aan keenaynaa. waxaan ka dhiganaynaa am I a student. aadaan hal ah oo singular noun ah. student anigu arday miyaan ahay. anigu arday miyaan ahay. is she a cook. markii hore waxay noo ahayd she is a cook. ayadu waxaa waaye cunto kariye. laakiin su'aalaan ka rabnaa isti halkan inoo taalay halkaana keensanay. sheedii halkan inoo taalay halkaana geen aydane. is she a cook. ayadu ma cunto kariye baa ama ma cunto karisa baa. is he a singer. is he a singer. asagu ma heesaa baa. haddii aan rabno inaan muxuu ahaa sentence caadi aan ka dhigano he is a singer dhehna asagu waa heesaa. laakiin su'aalaan rabno inaan u bedelano heedii inaan gadaal keenno istini dib aan u celinaa hore aan keeninaa. waa sidii hore oo ishii aan kusoo sameynay. isti halkan inoo taali halkaan aan keenay. heedii halkan inoo taali halkaan aan keenay. marka waa isdaba marinay. is it a ship. asaga ama iyadu ma markab baa. is it a ship. ma markab baa. markab waa taqaanaan oo kuwa aan rarno oo badii meelahaas aan maxaa kula dulmarno. isti halkan inoo taali dib u soo ceshanay. it oo hore inoo taalina dib u celinay idane gadaal aan geenay. waxay noo noqotay is it a ship. haddaa laakiin su'aal aan rabno ama erey caada haddaan rabno waa isdaba marinaynaa. it halkaana keenana isna halkaana keen waxay noqonaysaa it is a ship. ayadu waa markab ama sidoo markab. laakiin su'aal haddaan ka dhiganayno waa isdaba marinayna waxaan ka dhiganaa is it a ship. are you a worker. are you a worker. adigu
shaqaale miyaa tahay adigu shaqaale miyaa tahay haddii caadi aan ka rabno you are a worker adiga shaqaala tahay naqanaysaa laakiin tan waa su'aal oo asdaba marinaynaa you-da halka inoo taalay dib u celinay tan gadaal inoo taalay asdaba marinaydana are you a worker are we pilots annagu ma duuliyayaal baa ama duuliyayaal miyaan nahay okay haddii ereygan caadi inuu ahaan lahaa waxaan dhahnaa we are pilots annagu waxaan nahay duuliyayaal hadda su'aalan ka dhiganay we-da maadaama halka inoo taala dee caadi inoo tahay dib u soo celinaa arti halka inoo taalin gadaal u soo celinaa ayadun baa isweydaarinayna si inuu noqoto su'aal are we pilots annagu duuliyayaal miyaan nahay are they managers ayagu ma maamulayaal baa ayagu ma maamulayaal baa waa isla sidii hore aan soo marnay aan ku laabanaynaa weli ama aan ku soconaynaa they oo halka inoo taala gadaal keensanay iyo arto gadaal inoo taalay hore aan keensanay su'aalan ka dhiganay are they managers ayagu ma maamulayaal baa qaybteeni saddexaad waxay la mid tahay qaybteeni koowaad laakiin waxa u dheer ereygan not oo diidma ah aan gudagalno I am not a student not kan waa diidmo weeyaan I am not a student anigu arday ma ihi she is not a cook ayadu cunto kariso ma aha not waa diidmo mar haddaan not isticmaashid waa diiday ama waa diidmo caadi ah he is not a singer asagu heesaa ma aha it is not a ship ka ayadu ama asaga markab ma ahan not weli waa diidmo hadda qaybta koowaad fahantay qaybtan waa fahantay kaliya waxa u dheer notkan oo diidmo ah you are not a worker adigu shaqaalo ma tihid we are not pilots annagu duuliyaal ma nihin we are not pilots annagu duuliyaal ma nihin they are not managers ayagu maamulayaal ma aha they are not managers ayagu ma aha maamulayaal not waxay ka tagan tahay diidmo waa diidmo they are not managers ayagu ma aha maamulayaal cashirkeena maanta intaas noogu dhan yahay waxaa fila inaad fahanteen intaynan cashirkeena ka bixin ama muuqaalkeena maanta intaasaan kaga tagin waxaan jeclaystay inaan idiin xasuusiyo inaan mardhow aan bilaabi doono class ku saabsan class online ah oo aan ku bari doono intaani in ka faahfaahsan insha Allah haddii aad u aragtid fikrad macquul ah fadlan qaybta committee inoogu reeb sidoo kale la sii wadaag asxaabtaada iyo familkaaga iyo qof walba is leedahay uu ka faa'iideysan doonaa oo u baahan yahay anagana insha Allah dadaalkeena intaas ka sii wadi doonaa waxaan idin ballan qaadaynaa haddii wixii ka dambeeya cashiradeena si toos ah inaan ugu socon doono insha Allah intaynan videogan ama muuqaalka xiga aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh